siyaasi cabdisaaq xuseen diiriye oo maanta shir jaraad ku qabtay magaalada burco ayaa waxa uu si adag uga hadlay shirka beelaha bicida uga socda deegaanada dagar oo uu sheegay in meesha laga saaray qabanqaabiyaashii shirkaasi isla markaana ay sheegteen qurbajoogta deegaankaasi siyaasigan ayaa sidoo kale u mahadnaqay boqor buurmadow oo isagu madasha shirka ka cadeeyay cidda buddhiga u ahayd shirkani wuxuuna xusay xubnihii ugu horreeyey ee shirkaasi lahaa fikirkiisa siyaasi cabdisaaq ayaa sidoo kale ku baaqay inay shirkaasi ka soo baxaan qodobo dhaxalgala oo ay ka mid yihiin buu yidhi dhismaha waddada ceerigaabo oo qayb laxaad laga qaato iyo taageero loo muujiyo hogaamiyaha mustaqbalka ahna siyaasiga weyn maxamuud xaashi cabdi oo haatan ah wasiirka madaxtooyada somalilan waa kan siyaasiga oo arrimahaasi ka hadlaya marka hore waxa weeye ergooyinka iyo oday dhaqameedada iyo marti sharafta kale salaan iyo bogaadin baan u dirayaa waxaa la yidhi bartire abiskuul meel lama wada joogo warna iskuma seegana aad baan idiin bogaadinayaa shirkana waxaan ka rajaynayaa in guuli ka soo baxdo waxaan kaloo halkan doonayaa in aan waxa weeye kala socodsiiyo dadka oo u sheego dhowr fariimood ta koowaad waxa weeye soomaalidu waxay tidhaahaa haddii lagu sheelo waa lays sheegaa haddii lagu sheegana waa lays sheegaa macnaha haddii lagu qariyo waa lays sheegaa haddii lagu sheegana waa lays qariyaa shirkan waxaa ku sawiran waxa weeye aasaaskiisa iyo bilowgiisa qurbajoog waxa weeye maaha shirkan bilowgiisii halkan baa laga bilaabay rag anigu aan ku jiro ayaa halkan ka aasaasay ka bilaabay waxa weeye oo ay ka mid yihiin anigoo ah cabdisaaq xuseen diiriye mubaarak cabdikariin xaaji ducaale cumar cabdilaahi cali xuseen raage raggaasaa bilaabay oo aidhiyada lahaa oo ku kharash garoobay oo naf iyo maalba u huray waxa weeye dadka warbaahinta ka hadlayey iyo dadka halkaa jooga midna muu xusin marka laga reebo boqor buurmadow oo libaax dhalaya boqorka waan salaamayaa bogaadinna waan u dirayaa waxa weeye taas waa taa waxaan u sheegaynaa beeshaa in uu shirkaas siiyey tacabkayagii taas waa mid tacabkayagiina kumaanan khasaarine guul buu keenay guushiina waa taa maanta arrinta qurbajooga wixii ay qabteen waa ku mahadsan yihin laakiin waxa weeye dee guulihii kacaanka oo dhan bay sheegteen waxaan leeyahay qurbajooga dadka dalka joogaa idinka mudan waxa weeye dowladdii baad qabsateen ganacsigii baad qabsateen dhaqankii baad qabsateen laydinka yeeli maayo dadka dalka joogana waxaan leeyahay waa nimanka inaga dhiciya wax walba qurbajoog xataa waxay fududeeyeen in dhallinyaradii tahriibaan oo yidhaahaan baasboor baan doonanayaa si aan xil u qabto ama aan mas-uuliyad u qabto marka waxaan leeyahay qurbajoogu guushaa kuma suntana dheri bislaaday bay kala baxeen hilib marka waxa weye wixii markii aan bislaynay ayay cad kala baxeen taasaan ku dhaafayaa waxaan kale oo halkan kala socodsiinayaa laba arrimood arrinta koowaad waxa weeye kolley waxaa ka soo bixi doona shirkan waxa shirarka kaleba ka soo baxa waxa weeye dee dowlad baa dalka ka jirta oo inta shirar ka soo baxdaa ma aha waxa weeye wax beelaha ku xidhane dee dowladday ku xidhantah laakiin anugu laba qodob baan doonayaa in ay ka soo baxaan horta waa mida beeshu waxay nasiib u heshay waddadaa dheere siilaanya inoo bilaabay in ay hareeraheeda degantoo ilaahay ku beeray waa horta waddadaa qaadhaankeeda ka qayb qaatoo go-aankaasi ha ka soo baxo kaasaa waxayna tarayeen waa qodobka labaade waxaa jiray siyaasiyiin beesha ah oo hore han u yeeshay beeshu way ka hor timi cabdilaahi maxamed ducaalo wasiir firfircoon oo 18 sanadooda baa jiray beeshii way ka hor timi oo waxa weeye siyaasaddiisii way ku shaqayn waayeen isaguna waxa weeye dagaal buu la gala
waxa weeye waa halkaasa waa laismari waay xasan gafaadhi baa urur furtay rays la yidhaaho waxa weeye isagana dagaal baa lala galay marka waxa mushkilada waxa weeye siyaasigii reerka ah ee han la yimaadaba reerkii wuu ka hor imanaya mid baan markaa idin sheegaya haddii reerkii aynu ka hor nimi oo siyaasigii kasta ee beesha ka midaba aynu ka hor nimi dee mid kaloo han leh oo himilo leh oo hamuunu qaba in uu talada dalka qabta ayaa jire oo weliba jaanis haystay aynu la shaqayno waa maxamuud xaashi cabdi ma aha iminka laakiin mustaqbalka ayuu doonayaa in uu waxa weeye in la dhisuu u baahan yahay haddaad odhan doonto inamadaas markay burco wax ka abaabulayeen waxa weeye hawshaasay wadeen xaashaa lila waay iminkay igu dhalatay waa firsad aan arkay firsad buu haystaa aynu la shaqayno haddaad odhan doonto beesha maaha wuu yahay haddaad tidhaaho beeshiisii koowaad maaha dee waa tii labaade wanka haddaad u diiddo tuuga ha u diidi marka waxaan leeyahay anugu labada arrimood ha ka soo baxdaan odhan lahaa labadaasa waxayna tarayee waxa weeye waddadaan aynu qaadhaankeeda ka qayb qaadanno maxamuud xaashina cid ka mudani ma jirto waa siyaasigeennii inta halkaa joogtaaba waxa weeye xidhiidh bay la leeyihiin wax badan buu deegaanka iyo dadkaba ka qabtay waan ku taageerayaa kuu turi maayo waxa weeye waan hamranayaa suuragal maaha waa ninka haddaad doonaysa inaad dhisto ka badhe shisheeye maahe beeshu hore waxay u dhistay siyaasiyiin fara badan oo silaanya ka mid yahay oo kuwo kale ka mid yihiin daar maxamuudna waa ka mide aynu dhisno kuwa horena waajib bay ahayd maxamuudna waa waajib aynu dhisno dembi maaha shisheeye maaha xaq buu u leeyahay aynu dhisno fariintaana